الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وصحبه أجمعين وفائدتي صدن إيا اللباد كتاب كيني الفوائد للإمام ابن القيم الجوزية رحمه الله فائدة شيخ وحقوق مقعدري أنفع الناس وأضرهم dadka qofka kuugu nacfi badan iyo qofka dadka kuugu dhib badan labadaa qof ma kala taqaanaa dadka qofka kuugu anfac badan ama kuugu nacfi badani waa qof naftiisa kuu oggolaaday inaad ku tallaasho khayr inaad u samayso khayr maxaa jira ruuxaasi wuxuu noqday qof kuugu kaalmeeya khayr inaad samayso intifaaca adigu aad marka ku intifaacayso oo aad qofka ajir aad ka helayso wuxuu la mid yahay midka isaguna kugu intifaacayo oo isaguna khayr buu helayaa mithaal haddii aan idhaahno muxuu ka wadaa sheekhu qof baad wax bartay qof baad wax siisay qof baad ixsaan u samaysay qofkaas adiga jaanis buu ku siiyey ajir aad ku samayso isagana waxbaad u tartay marka sida uu kuugu intifaacaya adiga uu wax kaaga helayo cilmi baad bartay adduunyaad siisay wax kalaad u qabatay dhib ku soo socday baad ka celisay ee adiga siduu kuugu intifaacay si ka daran bad adigu ugu intifaacayo ajir baad ka heli adiguna aakharo marka qofka dadka kuugu anfac badani kaas wey waa qof kuu oggolaaday inaad wax u qabato ood khayr ku tallaasho qofka dadka kuugu dhib badan waa qofka isaguna naftiisa ku makamiyey oo kuu oggolaaday intaad ilaahay subxaanahu wa tacaala inaad ku caasido marka wuxuu kuugu noqday isaguna kaalmo dhibaatadaadii adduun iyo aakharaba gacan buu kugu siiyey tusaaliyo mithaal haddaan keenno qof baad xumaan wada samayseen kaba soo qaad waxyaabaha xunxun ama zino ama ciyaadan billaahi wax xun baad samayseen qofkaa rag ha noqdo ama dumar ha noqdo makaminta uu ku makamiyey naftiisii inaad cisyaan samayso inaad xumaan la samayso waxa weeye qofka kuugu dhib badan dadka waa qof kuu oggolaaday ilaahay subxaanahu wa tacaala inaad ku caasido waxaad ku caasin lahayd gacan kugu siiyey haddaba alladha almuxarama waxaa la yidhaahdaa macaanka xaaraanta ah ashyaada xaaraanta waa lagu macaansadaa wax badan oo ka mid ah xumaanta marka la samayn iyo zinada iyo ladda yar oo wakti koobana bay leedahay waxa la yidhaahdo daroogada dadka isticmaalayay xilliga isaga ah markay yidhahdaan qofku cirku ku jiraa ama maaragtay isaguna ladda iyo wuxuu ka helayaa wuxuu ku raaxaysto xoolaha ribada iyo xaaraanta marka la cunayo hadda xilliga isaga ah waxay leedahay macaan bay leedahay laakiin shay kasta oo xaaraam ah macaankiisa waxaa ku dhex jira mamsuuja waxaa ku dheehan qubxi iyo xumaan marka aad qaadanayso shaygaa samaynayso xumaan baad dareemaysaa waxayna muthmir ku noqoto midhaysaa oo dhashaa alam iyo xanuun markay hawshu dhammaatana dayib haddaba ku fikir waxaad ka fikirtaa marka uu shaygaa isagii kaa go'o oo ladada iyo macaansigaasi uu dhammaado balba qubxiga iyo xumaanta weligaa kula soconaysa marka isbarbar dhig labada arrimood kadibna tafaawudka u dhaxeeya iyo waxa u dhaxeeya fiiri buur laakiin daacada markaad samayn iyada xusni iyo wanaag bay ku dheehan tahay oo ruuxa markaad salaad tukan ama wax khayr aad samayn farxad baad dareemaysaa suruur ayaad dareemaysaa haddaba iyadana labada arrimood inaad khayr samaysiya in kale isbarbar dhigo midka raajixoo wanaagsan qaado alladha almuxarama
alamka ka dhalanaya iyo xanuunka ka dhalanaya aakharo fiiri labada arrimoodna isbarbardhig markaad fiiriso marka tusaale dadka xumaanta sameeya xumaanta xanuunkeedu weligeed ku dayn maayo xusuus bay ku tahay qof sameeyey intaasoo sana ka hor wax sameeyey baa maalin walba culimmada weydiin oo deganaan la-aan baa ku haysa oo walwal baa ku hayaa oo ma seexanaysid haddaba xilligaa isaga ah macaansigaa yar ha fiirinine xanuunka ka dambeeya fiiri adduun iyo aakharaba ilaahay subxaanahu watacaala toobada hayna waafajiyo xusnul khaatimana ilaahay subxaanahu watacaala haynagu arsaaqo kelimatu tawxiidna allah subxaanahu watacaala haynagu dilo jazakum allahu khayr wbaaraka allahu fiikum asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu